soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan kugu wadaagi doonaa hab fudud oo aad uga samayn karto internetka lacag adigoo gurigaaga jooga ayaad internetka lacag ka samayn kartaa barnaamijyadan aan kuu sheegayo ama wadooyinkan aan kuu sheegayo waxaa laga yaabaa adiga inaad wax ka og tahay laakiin wadada aad ku bilaabi leedahay sidoo kale waxaa laga yaabaa barnaamijyada khiyaaliga ah oo lacagaha xaaraanta ama lacagaha qamaarka laga shaqeeyo inaad ku mashquulsan tahay midaasna waxaan ku dhihi lahaa aakhiradaada ayaa halis gelinaysaa ee walaal hadda iska dhaaf waxaan kuu hayaa shaqo si xalaal ah aad u shaqaysanaysid adigoo maaragtay markaasi gurigaaga jooga aad u adeegaysid u shaqaysanaysid shaqo caadi oo maalinle ah adigoo shaqadaada adduunyada kale iska wata ayaad maaragtay markaa xilligii aad fursad hesho ayaad ka shaqaysanaysaa shaqadaas dalabkii ku yaalo waqtiga rabto ayaad qabanaysaa marka shaqadaasi si aan u qabanno waxaan u baahannahay shaqadaasi maxay tahay ku muuqaalan ku sheegi doonaa laakiin si aan shaqadaas u qabanno waxaan ku qasbannahay in aan leenahay waxyaabihii naga fududay lahaa tusaale ahaan oo kale haddii aan shaqaysano waxaan u baahannahay lacagtii aan shaqaysanay in aan la soo baxno sidoo kale waxaan u baahannahay meeshii aan ka shaqaysan lahayn ama dadkii aan u shaqayn lahayn akoon lacagtii ay inoogu soo dhacdo marka maadaama websites aad ka shaqaysanaysid websites available hadda Soomaaliya ka ah kaliya waxaad u baahan tahay inaad hal xirfad hesho halka xirfadna markaasi aad suuqa ku gasho marka website waxaa jira la yiraahdo Fiverr waa website aad run ahaantii u ballaaran oo aad ka shaqaysan karto lacag maaragtay ku dhawaad maalinta laga yaabaa inaad $200 $100 $30 $20 ah ku shaqeeyo adiga dabcan hawlaha kale adigoo haysta adigoo gurigaaga iska jooga adigoo adduunyada kala qabanaya oo waxyaabo aysan kaaga baaqanin ayaad shaqaysanaysaa marka website-kaas Fiverr la yiraahdo ayaa aad horta looga shaqaystaa asxaabi marka si aad uga shaqaysato website-kaasi waxaad ku qasban tahay in aad hesho si aad website-ka ka shaqaysato waxaad ku qasban tahay in aad hesho akoon inaad leedahay inta badan markii aad website lacag ka sameynayso maadaama hadda Soomaaliya aysan ahayn website laga aqoonsan yahay Google AdSense iyo waxyaabaha maaragtay aadka lacagaha looga sameeyo online-ka ah oo wadamada kale Kenya meelaha laga aqoonsan yahay kaas kuma xirna midkaasi wadan kale aad joogto kuma xirna hadda Soomaaliya available ka yahay waa lagu soo daray wadamada adeegooda laga heli karo sidoo kale akoonka aad ku xiranaysid waxa waaye waa Bible ayaad samaysanaysaa muuqaalkan waxaan kugu tusayaa habka aad u samaysan lahayd Bible marka saaxiibayaal si aan u samaysano marka aan u samaysano Bible waxaan tegaynaa bartaan ay ku qoran tahay waxaan tegaynaa Chrome markii aan tagno inta waxaan ku qoraynaa waxaan leenahay Bible account waxa uu leeyahay marka great personal great aan ka sii dooranaya midkan ah login aniga horaan ayaan ugu lahaa account ma doonina soo kiciyo wuxuu leeyahay login ma dhahaysaa no way mar login ma rabo aniga login ma taabana uma socdo waxaan leeyahay spend and manage your money shopping kaasna business loo isticmaalo adiga kada kaliya tahay kaas iskoraas ka dooranaysaa kadibna waxa la get start marka dhahdo fiiri hore kaaga soo qabtay select your counter automatically Soomaaliya ku saaranba ma dooranayso wadan kale sidoo kale waxaa si dhahaysaa get start hadana si dhahaysaa ku soconaysaa meeshaan telephone numberka gelinaysaa dabcan telephone numberkayga geliyay hor u soco telephone numberkan hadii aan geliyo zip code ayuu ii soo dirayaa this code-ka ku soo dhacaya saaxiib hal la wadaagin qofnaba sababtoo ah waxay u fududeynaysaa hadhoodii inuu akoonkaasi adig kaala wareego haduu Gmail-kaaga uu helo Gmail ayaa ku xiran tusaale ahaan oo kale automatically anigu waa automatically ugu igu jira meeshan waxa ku gelinaysaa email-kaaga magacaaga koobaad password ku xiranaysaa bas waxaas dhan aad buuxinaysaa and then aan geliyo password aburo waxaan leeyahay Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself. Is she helping with that too? hadii ismaaj garayaan wuxuu leeyahay password match uu leeyahay ismaaj garayaan kadibna nagista ayaa sii leedahay kadibna sidaas ayaad maaragtay akoon ayaad uga abuuratay your address-kaaga aad muhiim u yahay waxaad buuxinaysaa meeshaan waxaad gelinaysaa Soomaaliya degantahay waqtiga dhaltaaga meeshaan gelinaysaa boxkan waxaad gelinaysaa address-kaaga kan waxaad gelinaysaa magaalada caasimadda degantahay gobolka Hagsi degantahay postcode-kan adiga number 4 number ku gooniyaa samaysanaysaa then labadan ayaad ayaa leedahay agree ku raac macnaha tigtig hada saartid privacy terms ayaad ku raacaysaa kadibna create account ayaad abuuratay create account markaad abuurato aniga account ku ii abuuran yahay waxaan tagayaa account Bible appkiisa oo kici
saaxiib yaal markii aad samaysatid sidaan ayuu kugu soo baxayaa oo waa ikana xagga aniga waa lisoo dhaweeyey waa aad automatically uu samaysan yahayba inta ayaa imaanaysaa ama walletkaas ayaad ku dhifanaysaa walletka markii aad ku dhifatid wuxuu ku leeyahay add credit oo laga wado maaragtay markaasi Mastercard iyo ku soo darso wuxuu leeyahay bank accounts ma ku darsanaysaa mase waxa ku darsanaysaa debit or credit ka aan credit card ku darsanaysaa isku mid waaye aad ku xirinaysaa bank account aalada salaam bank aad leedahay oo kale aad ku xirinaysaa waxa leedahay markaasi sidoo kale ma aniga waxa isticmaalayo waxa waaye appkii ayaa ii degsan ayaan ka dhex sameynaya laakiin wuxuu leeyahay website ka toos Google ka aad oo markaa rabtid account aad ku xirtid Google ka ayaa fiican wakana waa lii keenay waxa lii dhahay passwordkaaga gali si aad akoonkaaga aad u xaqiijiso passwordkaaga gali automatically passwordkii waa save gareysma waa galiyay طبعا waa lii kana wuxuu yiri send money add to your wallet what's your wallet yeah jida laga card buuxinaysaa macluumaadkan ayaad buuxinaysaa oo ah qaybtan card numberka gelinaysaa oo ah account numberka gelinaysaa qaybtan cardka numberkiisa nooca uu yahay dooranaysaa qaybtan ma waxa rabtaa adiga waxa leedahay next cardka nooca uu yahay ma waxa rabtaa Visa Mastercard ku xiranaya dhahdo su'aalahan oo kale sidoo kale meeshan waxa gelinaysaa security code-kaaga oo adiga markaasi saaxiibayaal waxaad gelinaysaan security code-kaaga ayaad gelinaysaa oo Mastercard-kaaga saddexda number oo gadaal ka qoran ayaad gelinaysaa markaasi lana iska share garaynaysaa sababtoo ah waa Mastercard-kaaga hadii la haysto waa aad u fududahay in Mastercard-ka numberkiisa waa la share garayn karaa laakiin that's your security code waaye security code-kaas waxa waa adiga lacag ka bixi kartid lacag ka jari kartid lacag ka tiri kartid marka qofka uu ogolaatay bisa ka diri karo marka xogtan buuxinka kaara leedahay sidaas ayuu kuugu xirmay and then waxaas markaas intii ka dambeeyo Bible account oo full ah oo ku samaysan account ayaad leedahay kadibna ayu website kasta ama meel walba aad rabtid inaad online kaga shaqeysatid Bible account-kaagaas oo Gmail-kaaga iyo password-kaaga ku xiraysaa kadibna automatically Bible account mar lacag lagu soo diro account-kaaga si toos kugu sii wareejinaya lacag canshuur $3 $4 bishii camal ka qaadaya lacag aad u yar waaye waa dhahay bishii ma dhaheene sorry bishii maahan ee waa sanadkii ayuu lacag cadadeedu yarto $3 ka yar meelahaas ayuu ka qaadaya sanadkii oo dhan marka saaxiibayaal muuqaalkan intuu kaga yahay wadna ku maasantiin maadaama daawatan waxaan ka codsanaa muuqaalkan inaad asxaabta la sii wadaagto waxa laga yaabaa saaxiibo badan inay aad u daneynayaan inay fahmaan muuqaalkan waad maasantiin